السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن صاحبada aan jecelnahay meel walba aad joogtaan iyo waqti walba oo ay idin tahay halkani waa Caamir Rabbi janal asxaabta qaaliga ah isku cusubta subscribe dhacsi infaanti. Okay, maanta waxaan ka hadlaynaa ilaa 10 YouTuber oo caan ah oo runtii in badan la yaqaano haddana YouTube-ka aan bariyahan dambe aan lagu arkin. qaarkood waxaa ka mid ah kuwo YouTube-ka isaga fariistay ee ka haray iyo kuwo ay mashquul iyo waxyaabo lamida la maqan. Marka waxaan ku hayaa ilaa iyo 10 YouTuber oo runtii caan ah oo laga waayay YouTube-ka bariyahan dambe. qofka ugu horeysa waxay tahay waa gabar caan ah in badan YouTube-ka ku soo jirtay, muuqaalo qurux badan noo soo gudbin jirtay, safarro kala duwan gali jirtay, meelo kala duwan tagi jirtay. qofkaasna qof kale ma aha, number 1 waxa ah waa Genyada Madow. adigaysa Soomaal number 1 waa iyada, waxay ku maqantay iyada. number 2 waa Islaam Cumar waa wiil joogay Canada ee badanaa qisooyinka soo gudbin jiray. bariyahan dambena lamaba arag ilaa iyo sanado badan inuu maqan yahay laga yaabaa, xataa sanad iyo ka badan inuu maqan yahay laga yaabaa. laguma arag YouTube-ka. number 2 waa Islaam Cumar. number 3 waa ninkii aad taqaanaan, waa Xuseen Bebe. wuxuu ka safray Malaysia, wuxuu u safray Mareykanka ama Canada ma aqaano, ilaa iyo 7 bilood 8 bilood YouTube-ka uu ka maqan laguma arko. marka number 3 waa asaga, waa Xuseen Bebe. lambarka 4 waa nin caan ah, waa nin qisooyinka soo gudbin jiray, waa nin ardayda dhiirigelin jiray, waa nin ka hadli jiray mowduucyo aad muhiim u ah. ninkaasina cid kale ma ahan, waa Ayub Yusuf Sakin. wuxuu ahaa YouTuber joogay marka hore Masar, kadib waxa uu u wareegsaday Canada. markii uu Canada tagay kadib dib dambe looma hayo. Yusuf Sakinow xageed ka baxday? lambarka 4 waa asaga. lambarka 5 waa nin caan ah oo jooga Mareykanka, waana Amiir Sayid, waa Adna walaalkeeda. isagana ilaa iyo sanad lama hayo, sanad iyo ka badanba YouTube-ka uu ka maqan yahay. lambarka 5 waa isaga. lambarka 6 isagana waa nin caan ah, joogay Mareykanka ama Ingiriiska joogay. qofkan iyo qofka ku xigaba lambarka 6 iyo lambarka 7 waa walaalo, hal channel ay ka soo muuqan jireen. waana lambar 6 waxa ah Cilmi Rashiid Cilmi, lambar 7na waxa ah Cusub Rashiid Cilmi. labadaba waxay ahaan laba walaalo ah, YouTube-kana ka soo wada muuqan jiray inta ugu badan. marka sida aan xogta ku hayo, Cilmi wuxuu u noqday actor jira filimada YouTube-ka, xataa muuqaaladiisa hore private ayuu ka dhigay. YouTube-kiisa hadda ma shaqeeyo. Cusubna waxa ay noqotay wariye ka shaqeysa BBC-da sida aan xogta ku hayno. marka labadaas isagana way maqan yihiin, lambar 6 iyo lambar 7. lambar 8 waa Jimistihii weynaa. ninkani wax badan saas uma maqno, laakiin wuxuu maqan yahay adiga bil iyo ka badan waa uu maqan yahay. waxaana la dhahaa waa Shucayb Idbak, waad garanaysaan kuley. lambarka 8 waa Shucayb Idbak. lambarka 9 waa boqorka barankiga aan dhihin karaa, waa nin aad caan ugu ahaa samaynta barankiyada kala duwan. magaciisana waa Axmed Maraq oo Malaysia joogo, isagana lama hayo. lambarka 10 waa YouTuber caan ah oo joogay Xamar jooga, magaciisana waxaa la yiraahdaa waa Ismaaciil Xaaji. 10kaasi waad iga haysaan ayaan rajeynayaa. marka ma aqaano waxay ku maqan yihiin, laakiin waxaa laga yaabaa inay howlahooda adduunyo iyo waxyaabahooda ay ku mashquulsan yihiin ayaa macquula. marka intaasi qofba YouTube-ka
بريهان دنبا لغما هايو لمبر 2 waxaa waaye waa Ganyada Madow 2 waa Yaslaan Cumar Xuseen Beebe 3 4 Ayuub Yuusuf Sakiin 5 Amiir Sayid 6 Cusub Rashiid Cilmi 6 waa Cilmi Rashiid Cilmi 7 waa Cusub Rashiid Cilmi 8 waa Shucayb Eidbag 9 waa Axmed Maraq 10 waa Ismaaciil Xaaji 10kaasi YouTuber bariyahan dambaba laguma arag dhanka iyo YouTube marka asxaabta qaaliga YouTube-keena wuxuu ku socdaa xawaara aan caadi ahayn oo aad u badan marka waxaan rajeynayaa inaad xawaarahaasi ku sii wadaan oo aadna gaarsiisaan meesha hadda aan taaganahay iyo meel ka sareyso marka anaga inta ugu badan waagi hore waan ka maqnaa jira laakiin hadda update aan nahay waan joognaa fahanteen waxaan isku dayaynaa waqtiga ugu badan inaan muuqaalo kala duwan oo tayo leh aan soo gelino waxyaabo kala duwan ee idin qanciyo inaan soo gelino ayaan rajeynaynaa haddana waan wadnaa oo waan soo gelinaynaa marka haddii aad ku cusub tahay saaxiib subscribe-ka naga baqiilin subscribe-ka dhac ku sii dad badan ayaan la tartamaynaa haddii aad subscribe ay ku tahayna share garay asxaabtaada ku share garay like-ta waa noo muhiim like-ta saar marka leesma xasdo saaxiib muuqaalka intaani ayaan kusoo gabagabeynayaa haddii aad soo gashay oo aad fiirinayso please subscribe-ka dhacsi subscribe-ka saar like garay dhagsi sii share garay asxaabtaada u xawli waxaan rajeynayaa inay adigana dhib kugu ahayn anagana ay faa'iido noo tahay marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh